saaxiib badaha degani badmaxyo xariifiye ah ma soo saaraan askarta dhabta ahina kuma soo shaabaxaan saldhigyada tababarka ee waxa ay ka dhashaan goobta dagaalka buucdeeda waan ku salaamay saaxiib abaal ayaynu u haynaa caqabadaha aynu nolosha ku waajahno oo iyaga ayaa dadka aynu nahay naga soo saaray dhibaato kasta oo aanay ku dilinba way ku xoojisaa oo difaac ayay kuu samaysaa talaalada ay carruurta siiyaan waa xanuun sahlan oo yasiran oo jidhkooda ayay barayaan cudurkaas haddii markaas kadib uu ku dhacana jidhkooda oo garanaya oo difaaca ka sii samaystay ayaa la dagaalamaa noloshuna waa sidaas oo kale oo jug kasta ay kugu dhufataaba awood ahaan way ku xoojisaa go'aankaagana way adkaysaa saaxiib wanaagsan aad jogaha ku xoojiyey ee haddana ku tusay dhinacyada aad ku xoogan tahay adigoo hortood u malaynayay inaad dhinacyadaas ka liidato wanaagsan aad khiyaano mooganaan kaa toosisay oo aad dabadeed go'aansatay inaad halkaas ku hakato haddii aadan dhexda inta aad soo socotay khiyaanadaas la kulmi lahaydna aad gaadhi lahayd aakhirka dhabbahaas oo aad uga dhici lahayd argagax iyo afkalaqaad aan kalaabasho lahayn wanaagsana musiibo kugu habsatay oo ku tustay dadka kugu xeeran xaqiiqadoodu iyadoo dabadeedna aad aragtay qofkii aad garabka iyo gaashaanka ka filanaysay oo noqday qofka koowaad ee kaa taga kuwo aadan ahamiyadba aadan siin jirinba aad dhaaday inay yihiin dadka kula rafaaday ee naftooda kuu bixiyey ee dhigta kuu saaray xaafsan darta ayaanu halkan u joognaya wanaagsana mowqif kadeed badan ku baday oo khibrad aad ka hanatay la'aantiina haddii aad baraare isaga jirto aadan xigmaddaas uga dhaadhacdeen waan ka xumahay saaxiib laakiin hungada iyo khiyaanadu waa dugsiga ugu weyn ee aynu wax ka barano wanaagsana hungo aad ka damqatay balse haddana dad badan qalbigaaga ka haadhay dadkii u qalmay qalbigaagana golo keentay wanaagsana dagaalada aad ku jabtay balse haddana aad ku baratay in ciidanka aad isku hadlaynaysay ay ahaayeen abka baarkiisa i rumayso inaad waxyaabaha kugu xeeran xaqiiqadooda ogaato ayaa ka xanuun yar inaad iska aaminsanaato oo aad ku degnaato adigoo aan ka warqabin saaxiib badaha degani badmaxyo xariifiye ah ma soo saaraan askarta dhabta ahina kuma soo shaabaxaan saldhigyada tababarka ee waxa ay ka dhashaan goobta dagaalka buucdeeda abaal u hay duufaanka kugu kacay ee ku bisleeyey iyo dagaalka qadhaadh ee ku baraarujiyey